arrin markaas taagan lama garan karo haddaan maanka lagu hayn wixii xiriirka la lahaa oo tegay marka joogto iyo tagto ayaad isku eegaysaa markaas kadib ayaad arrintaa ka talin kartaa timaadana oo dorisi kartaa Soomaaliya marka wixii ka dhacay oo noqdayba soo jireen oo 30 sano ku dhawaad ka socday in laga hadlo waxa lagu qasboon yahay in dib loo eego la yimaado xaaladda la taagan yahay laga tashado waxa soo socda Soomaaliya maxaa ku dhacay waxa ku dhacay dawladdii jirtay marka hore waa tabar daraysay kadib waa wiiqantay kadib waa dhimatay oo iyadoo meydabay xataa in muddo ah nooleed waxayna dhaxal siisay caaqiba xumada ay leedahay dawlad la'aanta dawlad la'aan dawlad xun Soomaalida tiraahdo ma aqoon meel ka keentay dawlad la'aan bay dhaantaa maxayna dhaxal siisay marka dawlad la'aantii waxayna dhaxal siisay dagaal sokeeye haddaba aan ka sheekeyno dagaal sokeeye oo maxaa tahay waxa weeye dadku waxa ay wada yihiin hadday ilaashan waayaan maxaan nahay Soomaalian nahay muslim baan nahay waa wada dhalanay isku sinji baan nahay meel baan ka soo wada jeednaa taa naga dhaxaysay haddaan ilaashan weynay oo aan isku dilnay waxa aan kala nahay beelaan kala nahay haddaan isku dilnay waxa aan kala nahay iyo beelaha aan kala nahay yaa joojiyey yaa xaajaqaad ka noqday ninna ma joojin ninna xaajaqaad kama noqon ee waxaa joojiyey waxa aan isu nahay waxa aan wada nahay baan ilaashan weynay waxa aan kala nahay baan isku dilnay beelo waxa aan isu nahay baan na kala celisay oo ah المعتي المائدو هذا يعني تلاحم تاسع الكلبس اسكي سبا دجال سكية إمس وصعدة دجال سكية اسكي سبا وحو صعدة أنت اللي هالمام سنية هي وحل سكوية هي good وحل سكوية هي سي قرما الحسوستا وحل الحسوستا مركي جيري ده كتسته oo ay dadkaadu yihiin aad dareentid artigaa baa dhintay seedigaa baa dhintay markaas ayaa la xasuustaa markaasayna istaagtaa dagaal sokeeye zamankiisa ma dheeraan karo dagaal sokeeye sidiisaba sidee baa loogu hortagaa taariikhiyan see loogu hortagi jiray taariikhiyan dhaqan baa jiray sida Yurub ay dhaqan u leedahay weli dhaqanka Soomaalida waad moodaa inuu kan Yurub واسمه بريد دونا كان يوروب واحد مودا كان أنا يمكن في عينه يوروب وحيا شيء ويز ديل جستي هذا الشيء محي وقتلك شيء ديل كاس إني كهرتكتو وحيا وقتلك شيء بقرطو يدو بقر كودكي سمى جورسن جرين وحيا كجورسن جري أصلا عرفتي سبا بقرة كانوا كورس سي قان كبقرطو يد يقعدان ويسو أي تحجرين ويالطو dadka uu la xididka yahay waa boqortooyooyinka Yurub sidaas ayay ku celin jireen oo kula dagaalami jireen dagaalka ka dhex oogmay hadba dadkii isu dhigay Soomaalida ka sii fiicnay Soomaalida waxay yeeli jirtay wax la yiraahdo godob tir baa diri jiray wax la yiraahdo godob tirku ma aha madaxda heshiinaysa dadka ama labada reer oo isku ooda ah ayaa isdhaafsanaya gabdhaha marka taasa waxay ka hor istaagi jirtay talaaxumkaas
iyo isdhexgalkaas baa kor istaagi jira maanta waxaan taagannahay xilli casri ah oo sidii waagii hore gabar ninkay gabadha wax isguus ayagoo soqom isguusay maanta waxaan ku jirnaa waqti casri ah taasaa naftirkeeda waxay u baahan tahay in la casriyeeyo oo see la yeelaya waa inuu dadka horta micnaha waa inay fahmaan kullu maa qofku uu guurkiisa fogeeyo wuxuu fogeynayaa colaaduu fogeynayaa guurkii fogeeyey micnaheedu waxaa waaye colaadii buu fogeeyey aan ku soo noqdo dagaalkii sokeeye oo inta ka dhacay dagaalkii sokeeye inta ka dhacay wuxuu nagu suubiyey wax particular gaar ahaan u baahan in loo baahan in loo laga taxadaro markuu dagaalkii sokeeye dhacay oo shidada dhacday dadku waa qaxeen dadka ha qaxaan laakiin Somaliland ma qaxin waa ka duwaneed arrin ka daran bay suubiyaan waa guuray marka waa qaxay waa nin soo noqonaya waa guuray waa nin kaatay waa ka khasaaro badan yahay ninka guuray dagaal sokeeye waa naga istaagay dhaqan baan u leenahay waa istaajin karnaa laakiin anaga dagaal siyaasadeed ma istaajin karno maxaa jira dhaqan ma lihin ma ka adkaan karno maxaa jira dhaqan ma lihin waddo loo raaco ma naqan in la qabto mooyaane isma kala qaban karno haddana marka waxaan wareegayaa maxaa gaarsiiyey 28 sano 30 ku dhawaad waxaa gaarsiiyey dagaal siyaasadeed jabhadihii baa isnidaamiyey qabiilna kaashaday oo tabar ka dhigtay mush mabda tabar ka dhigtay dagaalka jabhadaha oo siyaasadeed oo cajiibka ahaa shalay labadii wada socotay maanta ayaga isdilaaya oo ku duulaya kuwa kale kuwa shalay ku duul labadii shalay isku duushay baa dara arkaysaayoo isbahaysi u ka dhaxeeyo kuwa kale wax bilaa nidaam wax aan meel loo raac lahayn guul maxaa dhacay marka caalamka lama soo eegi karin caalamka sababta waxaa weeye caalamka wuxuu ku soo eegayaa wuxuu soo eegaa hadba meesha dantiisa ay ku jirto dhibaatada adduunka ka dhacda UN-ku maaha saad moodeen maaha meel khayraad maaha UN-ku waxay eeganayaan dadka UN-kan lagu sheegayo dad baa horbooda dadkaas masaalixdooda ayaa la siiyaa mudnaanta koowaad waxay isku soo aadeen Kuwait Iraq marka ay ku duushay Kuwait qabsatay xilligaas iyo xilliga annaga aan dawlad la'aanta noqonnay ayaa isku soo aadanaa marka mudnaanta waxaa la siiyey Kuwait arrinteeda in la kala dhex galo sidii doontaba ha ahaato waxaa nooguma jira annaga Soomaaliya waxay arrintii marka ka fursan weyday Djibouti inay soo gasho Djibouti baa markiiba noo abaabushay shir ومركيبه عزنتو سو كانتي مركز لح جبهدود سي بون يعني جبهدول اللي قلنا لح جبهدود مجرين لكن جبهدها مركز صدح جبهدات جري وجري جرو وينايو بنتي جبهدول مركز حروق لها جبهدول مقع هانكلي وجري جبهدها نفس الوضوح كلها هي انواع كل الدول جبهدي بي سو كانتي وهي حاجه غاب وقدكتي وعجيب كعه odayaashii Soomaaliya ka sheegana madaxweynihii warray Soomaaliya mudane Allah yarhamu Aadan Cabdulla Cusmaan prime minister kii ugu dambeeyay Allah yarhamu Maxamed Ibrahim Cigaal Cabdirazaaq Xaaji Xuseen Sheekh Mukhtaar yani dad laga heebaysto bay u dhiibtay markaas guulad abtidoon wuxuu u dhiibay dadkaasoo u yiri qabta Soomaali ka arrimiya arrinteedii ka odayeeya heshiisiya laba shir baa markaa la suubiyay Djibouti wali Djibouti natiijo ma ayan dhalin waxaa dhacay dagaaladii baaba sii kordhay kadib waxaa dhacay caalamkii baa markaas Kuwait inta ka soo xaliyay arrinteeda buu arrinta Soomaaliya soo eegay
xilligaas waxaa ku aadanaa waayahaas baa waxaa la doortay بطرس غالي waxaa loo dhiibay 36 kiis oo markaas dunida ka jiray oo Soomaaliya ay kamid tahay iyo waxaa kamid ahayd kan 36 wuxuu ahaa islaam yuanka u shaqeynayay oo lagu dilay Boosaaso oo loo oran jiray Marta Pampalova oo kala lagu dilay iyo yuanka u shaqeynayay 36 kiis Soomaaliya waa ku jirtay ومشاكل أدونك مركز كتاجنا حلو ريجنتي الوريجي بدرس غالي وأنا المتعلنة إنك استوى وجبوي أنا وكره صوماليا وحال يالي شركة أيالو أبولي أو لسوا يرايو جبده هذي هاي جبده جبوتي كغيب قال لح مركان جبده أدي سوا كغيب قال حين سدح يطبن جبده شركة لبعض الوقت وحي هاي لح يطبن جبده وحي يالين وحد مدة إني يالين دي إنيش جبهدو إزديوان قليان وأفرنايين هذا تيتر هذا النجبهد بانهاي والقدايين إلا أي فضل بستي أي نقدين سديتا أفر جبهدو يعني جبهدها سياسي هذا المركو حنكش كاننا شركي أديس لوقتي نتيجة ديسا إيوه أفر طبعاً شروط وقدم لي شركة أساسية السعودين تيرادة جبالها والراعيين واللكرايين واللبذنايين محامة كدعي وهذا عين سدح الشيء بعد عظيم وعجيبة شركة الأبابولة قاب كلو أبابولة وحوها جبهدوه نحرك أي كهضلان وحا هايين إن أي كوهيشيان وحان ويشين كن نتيجة فشل بكل ما يجري دنيا مكان وحال لما سينجري الصومالي شكوى لو سبي وكوشين وذي شكرا على غبطة قابك واكي نحرك ورمك نتيجة وفشل شكرا على غبطة ساسا كسعني مع الزمن كله 9 بش سياركي بالوضبة جبهة بلا بحال سبينا الشفر شركة نتيجة اسمه بدش محاجرة محي اسمه التلفزيون نيكا عالمك اللي يغانوا لو ذا قنصية هاي أينشتاين ولو يري فعل إسلا سيديسي وسع العليسي نتيجة اسمه بدشو اسمه بدري كرت نتيجة يعني نحرك قابكي نحركي هذا يسكمديين وهذا مرة بعض مرة سدحات مرة فرق نتيجة واسكوار سيدا عرضية ييرسكا لو ييرينايو أما لحظة يتضوى إريبا لو ييري هل إريو شنجر صون نغضي هدو قفو هل إري هدو قفو ولكن شنجر صون نغضي مثلا أولئك وكانوا قفل فنقول شن جدودة كجفة لكن وهل غلط بقول طبعا كيف سيار مقابلة يا هذه الكلمة دي بس صار نقطة غلط كوهل إنك استو الصحيح ده مودي شن جدودة إنك كجفة وخلص كوهل محامر كذا عايف هو نسيب ولا وعلى دورتي مضانة إسماعيل عمرقي لو دورتي مدحوينها جمهورية جيبوتي ما مرينا يمد دير إن إكسوري قتي مركي أو يستاجي وبنتدي إن أشير صوماليات قبطه أو كجورو وحان وسخني مدعة شركة بنتعة كجورو أو جورو شير حلالة وصومالي يكون شيء وحو كجوري مبدأ وحو جوري وحو يري جبهة ما إيمان كرته جبهة ما إيمان كرته أو جبهته مي ما كرت محبوب كوضع وحكوضع جبهته أما ها هو يسناتو أما ها بيسناتو هو حب سيبته مامو وجبهت ومدى الصوماليات وحو يري صومالي غيبه هذا ضد كذا غيبه هذا كلا الدون السوي ماذا دنتينا أيهنا كتشر
maxaa isbedelay marka qaabkiiba isbedelay oo jabadihii maxaa bedelay waxaa bedelay ummad lasu keenay qeybaheeda kala duwan salaadiinteeda mutacalimiinteeda siyaasiyiinteeda ganacsatadooda ardadood wamaa adrak dumarkooda tagaahi fadhiista oo heshiiya idan qaabkii buu bedelay nuxurka waxay subsadeen cahdi ay wada dhigteen ay ku heshiiyeen in ay u maraan dowladda la dhisayo waxay doorteen dowlad waa lagu guulaystay heshiiskaas maxaa marka maxaa isbedelay waxaa isbedelay qaabka nuxurka natiijada waa isbedeshay guud waxaa kaloo zaa'id ku ah aad u fiican soomaalida aan ka hormariyo mithaal aan ka hormariyo noo fududeeya waxa aan soo wado si loo garto bilaal radiallahu canhu nabiga markuu dhintay kadib ma addimin bilaal mar dambe ma addimin abubakar baa noqday amiir almu'miniin waxaa ku xigsaday cumar iyadoo sham bilaad sham meelahaas iyadoo la joogo ayaa cumar bn khataab bilaal buu wuxuu ka codsaday mu'adin rasuul wuxuu ka codsaday inuu bal hal jeer addimo buu ka codsaday bilaal waa ka ogolaaday xajir nebiga kadib ma addimin bilaal waa ka ogolaaday waa uu fuulay dushii waa addimay codkii jabbaaradii sabcatun yudillu llahu yowma laa dilla ilaa dillu almu'adin bilaal ma kari jirin shiinka saad buu dhihi jiray nabiga wuxuu yidhi saabu bilaal min cindi illaahi shiin jabbaaradiisii buu la fuulay dusha oo addimay adinkii markuu dhammaaday baa cumar soo degay bilaal soo degay cumar buu dul yimid ya amiir almu'miniin mise waaba maqan yahayba waa saasuu inta u baraarugay buu wuxuu yidhi bilaal sayidii bilaal inta aad addimaysay waan tegey waxaan garabka waxaan la fadhiyey xamza waxaan la fadhiyey nabigaan la fadhiyey xamza inta iga xigay hebel inta iga xigay yacni waad ii rartay waxaad ii rartay xilligii nabiga nala joogo waa mahadsantahay madaxweyne lama simin madaxweyne ismaaciil cumar geelle muddadii muddo gaaban ma ahayn sida shirarkii oo kale muddo ku filan baa la siiyey soomaalida 8 bilood baa la fadhiyey tiro ku filan baa la siiyey 2,000 qof baa tagtay madaxweyne ismaaciil cumar geelle muddadaas 8 bilooda suugaanta ayaa loo adeegsaday dadka in la raro oo loo raro xilligii berisamaadkii dadkii muddadaas joogay suugaanta loo adeegsaday waxaad moodaa in ay loo raray xilligii soomaaliya ugu fiicneed gobonnimo doonka baa loo raray dareenkooda waxaa la gaarsiiyey dareenkii xilligii gobonnimo doonkaa la gaarsiiyey mudane ismaaciil cumar geelle baa soomaali dhex yimid ka baqsanaa walwalsanaa inay heshiin waayaan khudbad buu akhriyey uu ka codsanaya in loo hiiliyo maxaa loogu hilinayaa hiilka uu codsaday maxay tahay wuxuu codsaday in loogu hiiliyo inay heshiiyaan ismaaciil intuu khudbada akhrinayay waa ku ilmay asal ugeyn buu ilmay intii telefishinka fiirsanaysay wuxuu noo suubiyey caalamka soomaali 5 qaaradood bari baa ingiriis faanayo wuxuu yidhi calanka ingiriiska qorraxda kama dhacdo
qaxootiga Soomaalida qorraxda uma dhacdo shanta qaaradood bay joogaan shanta qaaradood bay ka eeganayeen maxaa ka socda carteen khudbadii bay eeganayeen Ismaaciil baa soo istaagay wuxuu ka codsaday in loo hiliyo loogu hiliyo heshiyo waa ku hiliyo madaxweyne la doortay shirkii waa guuleystay dawlad baa noo dhalatay kursiga UN-ka 10 sano waa banaana Ismaaciilna markaas ugu horeysa madaxweynenimo madaxweyne xasan Cabdiqaasim oo la doortay buu UN-ka geeyay kursiga kuma fadhiisan wuxuu kursigiisa ku fadhiistay markuu Soomaali kursigoodii kuubsaday waxaan rabaa inaan sheego kale oo cajiibka ah la yaabka ah mucjizada ah Ismaaciil Cabdiqaasim markuu xamar ka soo baxay 4 qof baa soo sagootisay markuu xamar ku noqday 1 milyan baa soo dhaweysay maxaa jira waxa soo dhaweeyay Soomaalidii qalbigooda uu weli ay ka qoyaneed ilmada Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya مليون وحيس ويدين لبركة نيك اللي يرادو رجل طيب أردوغان باب دولان الوسو قاضي انقلاب وسو بيه إذن كوسو كل حريم صدن يلح ديارد اليوم F-16 هليكوبتر رضع عن عادي هن صدن يلح تانجيدا عن عادي هن يا كهور تجي أود كهور تكتم حقيقة 800 أو كن وقف بكهور تكتم Cabdiqaasim waxa soo dhaweysay milyan iyo xoogaa awoodda intaas lacag baa farta laga saaray uusan ku qabsan Soomaaliya xamar ku qabsan dekada ku qabsan madaxtooyada ku qabsan oo ciyaar xun ay taagnaayeen awoodda ugu xoog badan oo Turkiya taalay ummadaas tiri stop awoodda laga farta laga saaray Cabdiqaasim baa ka xoog badnay meel ay gashaan war waxaan ku weydiinay Cabdiqaasim war yaa qalajiye quluubtii qoyaneed oo ka qoyaneed ilmada Ismaaciil Cumar Geelle yaa qalajiye taas ku weydiinay هذا حسوستان جيبوتي باللوضي وضيالك الشيكن صوماليا بي وصمي سيشير أو حاجقات يقول نقضان ولو ريجين مدرم بيهستين أفريقيا تبشر وما أدرك شركة جب عرتبة حقيقي شركة عرتبة حاكتم بي كذب واحد باللابين إسلا سيدي جبدها جيسكو ولو ريجين بيتنح ديسكا دولدها ولو ريجين مركبة Cabdiqaasim markii hore aniga sagal dacwad u qabay laakiin waan iska cafinno dawlad ba Nairobi lagu sameeyay meelaheedaas iska wareegaysay 9 bilood Nairobi joogtay 9 bilood lix maaqan jawhar baydhabo meelahaas ay wareegaysay soo dhaweyn ma jirto wama adraak maxaa jira waxaa loo diray oo la dilay dareenkii dhintay baa la dilay la gaaray markii dambe lidaraja la gaaray ahdigii iyo wixii carta lagu subiyay iyo la baabi'iyay oo la diray oo nin shaqaala UN-ka ah wuxuu Djibouti baa inta shir lagu subiyay Djibouti inkastay raalli ka ahayn laakiin gogosha meesha saa lagu dhigay Djibouti raalli kama ahayn maanka ku haya lagu dhigay waxaa la yiri
مقا حلبانتي لا بقول ثلاثة لا بقول ثلاثة با نيل سوسيالي كده قال شن بقول إيه كنتم قار حلبان نيرة ومحتاج شن بقول كنتم هل كلمة بالو أمسي وحنا يملك العكس السيناء ومحاكوه قرصون وحاكوه قرصون العكس هذا جويس هذا دولستات مركز المية دي بالصومال وحنا شنطة لا بقول ثلاثة كارودة ما نجي حلبان إنه ينكواس مسكوا إيه كبقى يعني العكس إني كيكو يام بحلبان نويه مسدن توضي حلبان نويه حلبان نظر إننا نواصداس هذه إذا فرحت جلني يهدي كلام أو محاد مدة فير ما هو الدستور؟ دستور محلي دستور وتشريع إرادة الشعب يعني أيضا الشرعية ربيتان كده دوينها والله هذا هو الدستور قف قد ما الدستور فوق الدستور باو حاكا دستورك وحاكسر ريا نيكاس حمو يوين كلا صدري وحاول يرادو فوق الدستور يعني انتو دونو حلبانا دو دونو شنبغولي وكنتو دو دونو لبغولي تضباطا دو دونو كيف يشاء سو دونو ايوك عاوي مركز الدولة ده مركز الدولة ده انا حساب طبعا ودنا هي انه ماشي بجوكتا والدولة دي اوكي حضر مركا ان ديب ونقلنا oo aan dib u eegno marka aad baqaysid oo aadan taladaada lagu socono lagu talinayo dhibaatada ay leedahay ma soo marnay midaas mise maya waxaan hadda ku eegaynaa Soomaaliya iyo Somaliland marka ay israacayso Soomaaliya iyo Somaliland 60kii bay xorriyad qaatay إسرائيلي ويمادين مقدشو كلمة الله ما قرن كرو هذا أنا تصالح أنا سوق هذا عن قتل من صنّه سيداي الوضع ما دون كان دت كان دول ده هني سيداي الوضع ما جرمال ولا أتكاذي ولا قيف صدق أفر دول باقي في صدق جدار بالله دحدقي زمن بيساك هاي حياك عليه جرمال يوروب بام كتب اساسي اقولي ان اي دولة وضع النقضان يوروب دولة ان وليس فعلوا بس تنمين بين النقضين نمانكي لقب غايي oo musiibada laga filayay oo اتحاد سوفيتي واجه الاورنجي دربيغا دhisay kadibna ruush noqday oo uu soo fuulay xilka nin la yiraahdo Gorbachev oo isbedel weyn keenay siyaasadda ninkaas baa ayadoo si kadiso aad uga fog filasho jidaadkii u qaaday dadkii sii daayay waxaa madax ka ahaa Jarmal markaas Helmut Kohl baa madax ka ahaa waa ku baraarugeen in jidaarkii la jibiyay Jarmalkii la soo furay Helmut Kohl boqolkiiba boqol waxaa ka daadegsanaa Ingiriiska iyo Faransiiska iyo Mareykanka iyo dadkiisaas inay leeyihiin taxaaluf isbahays dowlad Yurub isla yihiin ma qiyaasi kartaan ما رميسانيسان حدان إذن إرادو روشكي اللي قفلاي إنو كلا هاي ربلا جرمال ما بكلا هينا وحا بكلا هاي فرنسيس إيه إنجليز مع معجزة أنتي مركز صويرتي إن مركز وحا هيد برايم مينستر وحا كاهد مارغريت تاتشر وأدو شيء هذا النمي يدو شيء لو ماشي كنتكتي Gorbachev بيو تكتي waxay tiri maxaad u soo deysay maxaad u mideynaysaa in Jarmal dib bay waxay ugu noqotay inay akhriso buugagii kiibash Churchill ninkii la oran jiray prime minister ka dagaalkii labaad ahaa buugag uu ka dhigay Jarmalka bay dib u akhrisay waxay isku dayday inay hor istaagto Jarmal Israel waxa ka darna Faransiiska Mitterrand baa markaas ahaa Mitterrand baa wuxuu ahaa ان مدحوينها فرنسا
وكان نحصل عليه وعجيب كأجرمل وحي رميسن وايين راش باكوا أقول إن مدودي ذكر دولة يربط هذين وضوح المسكوت دستين أو حتى عندما دسكوت دستين أيها هرتاجن ويكو أتكاتك قفوا بعض ذي كل ذي دي دالنا كابضل دول إن في شدة من بدر ومعجزة هذا وحن هذه النمركة صوماليا يسوماليا سيدا ودعتي ولي يدنا مشيين لكن ما أنت وشيء محاجرة دوان كرادين دو بنكرادين صوماليا مركا لحظا كي بيهد أولو بلنسنا إن قالت حرية ده صومالي لانبالا لسوه أرمريي أو كور قالتي شمال الله فريبر صومالي لان ددويله صومالي لان ما ينقاذن دولة نمو وحي قالتي مدنمو يسرع بقالتي دولة ما ينقاذن مدحونا ما يندورن وحبا ما ينبدلين سيدي اللوغة تقبي يقادين أنا نو كان مدنما نو كان هل كان بيمادين محمد كان كبعي تاسوا يتان ربينا كشيكي أولي اللي شيكي انت يوك بابا يك انت يوك تسواب الله وواد لمطي هل كان نقولك تليانيكا waxaa joogay dadku waxay u qaybsanaayeen dad xurriyad doona iyo Soomaali ka hortaagan xurriyadda in la qaato oo la oran jiray Bro-Talyaani dadka Talyaaniga la jira Bro-Talyaaniga waxay dili jireen Soomaalida waxay dili jireen cadaabi jireen silcin jireen jaajusi jireen legal shaqeeyad baan ka sheekeynaya nin la yiraahdo سياد تغني أنا قلت شيء صاحب الله سياد تغني اللي قدوها والله غرتي والله قراعي قبل كابا اللي يجري وصومالي يجري ولا الدلي قبل كابا يجري صومالي ولا سيد قبل كاب صومالي بربا الله سوقات ديجا يبغى كان الجاسي قبل كيسة إنه شيء جديد markii markuu dhiman lahaa wuxuu yiri abgaal mugan jawa waa kelmad macruufa abgaal mugan jawa kii dilay waa la yaqaan ko tan labaad biriyo kale waxay u baahan yihiin hadana dhaqaale xumo jirtay bangi xigta wala haystay lacag u baahnaayeen waxa la yiri annaga hadaa doonaysaan inaan wax idin tarno وإن دولة كغيب جلسان دتكي نلسعدي مسور توبي سئان دتكي نلسعدي إن وقتنو حالات حن إن وقتنو وإن دولة كغيب جلان لا بد الشردي بقى لقشي خصب وحي نقطة مكان إسراعي بالديدي والله كلا ريري حرية صومالي كفر حرية دولة نمدة إني قاوته هل قاوته دولة إيديس يسوع ذكي دولة نمدة كسر جيدي إني قلع بالغو خصبه لا بد الشردي وخرار ما أفكر له شيء وهلمت كل وحي كل عين دادو سنكفلين بهرتاجنا سكديني هرستاجن إسراع عجرنا قول محاضر عين لقوا dadkoodii way fadhiisay waxay tiri sidaas la yiri bixito wax ma dhaqaajin karno dawladnimada dhaqaale loo baahan yahay dhaqaalihiina waxa naga xiga Bro-Talyaani iyo dawladda ka qayb gala dhaqaalihii waxa naga xigo kale leeyihiin annaga faylkan aan rabnay inaan xirnay xorriyada inaan qaadano oo UN-ka la tagno koonfur baan loo soo diray dawlad koonfureed وحرية قادتي بان أنك جيني ناي إسرائيلنا وحلان نوغو مجرو إسرائيلنا مقدي قاس بالقشي محا مركز عين
سياد تقول أنت لو تجيب على سياد وين ورمان كي كدلي جريبة وزيرة لقد قايا هذيك الدول لماذا صعب ما يصير سير والله يرى روحوا يري ديل كيجا دول لماذا كوي كبدقة وعجيب وحال اللقصينا يا وحي اللقكن إسراعي مبدي أسبان لقشي إذا كم قشم خطبتها لا خطبته إن إسراع محمد إبراهيم عياله الله يمارته نكي ضلن كان ما عرفتي والله لقي أخنت سيدا صلوا لقي ببعض سنة لقى صوت تستي بها عجيبة مكة محا اسكمل كودنتي اسكمل وحا كودنتي لقى سومال أي وجعلت وادمتي ودني النمذي عجيب كأهد ماشى سيكو غيريوتي إسراعي وفدي النويمي دولتي نوتمي سيدا مبدي لك شيء سوق مدول لك شيء لقريو عاصي إسراعي ماشى سيكو دنتي إسراع كلية ما دمانه ودني النمذي دمتي وها عجيبة مالي كاسة ودن بيسي SYL أما الليغو